wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Diiriye Toorno iyo duqa magaalada Hargeysa mudane Cabdikariin Axmed Moogo weheliyaan mas'uuliyiinta hay'adaha Save Children iyo Care ayaa maanta si wada jir u dhagax dhigay dhismaha laba dugsi sare oo laga bilaabay xaafadda Giney ee degmada Gacmo Dheer ee magaalada Hargeysa iyo xaafadda Masalaxa mashruuca waxa maalgeliyay midowga Yurub waxaana wada fulinaya hay'adaha Save Children iyo Care waxaana mashruuca lagu dhisi doonaa 13 dugsi oo ku kala ooli doona dhammaan gobolada Soomaaliland waxaana munaasabadan sidoo kale ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dhibaano ka socday dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa odayaasha waxgaradka bulshada iyo mas'uuliyiinka kala socday hay'adaha Save Children iyo Care ugu horreyn waxa munaasabadaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Gacmo Dheer oo ka warbixiyay baahida degmadu u qabtay laga dhisay dugsigani degmada Gacmo Dheer dhagax dhiga school secondary school runtii deegaanka dadka degan degmada Gacmo Dheer maamulka Gacmo Dheer xildhibaanada golaha deegaanka hogaaminaya duqa caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir ku-xigeenka hay'adda Save Children iyo dhammaan bulshooyinka marka halkan runtii maanta joogta dareenka farxadeed iyo caruurta marka ubaxa Soomaaliland qayb kamid ah in hooyigii wax ku baran lahaayeen loo dhagax dhigo maanta taalafteeduna waxa weeyaan farxad weyn bay u tahay guud ahaan baa caasimadda Hargeysa gaar ahaan degmada marka Gacmo Dheer dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxa ay runtii nasiib u heshay golo deegaan oo ilaaliya marka dantoodii guud tanina maanta waxa kamid tahay marka farxadda marka bulshooyinka ku dhaqan degmada Gacmo Dheer loo hibeeyay dhulkoogina ay ilaashadeen in dantii guud marka looga faa'iideeyay in caruurtoodii maanta loo dhagax dhigo iskuul ay wax ku bartaan aniga ka maamul degmahan anigoo degmadan cusub ma jaraaw hayay muddo 5 bilooda aniga lafteeda maanta waxay tahay guulo mid kamid marka sooyaalkayga taariikheed in noqdo marka degmadii marka labaad ee loo dhagax dhigo maadaama laba secondary school loogu daray qorshaha marka sanadkan wasaaradda waxbarashada iska kaashanayeen dawladda hoose taalafteedana anigana farxad bay tahay waana iba furka horumarka ka socda guud ahaan marka degmooyinka caasimadda Hargeysa gaar ahaan marka degmada Gacmo Dheer waxa kale munaasabadan ka hadlay madaxa hay'adda Save Children ee Soomaaliland mudane Cabdinaasir Cali Zahl oo tilmaamay ahmiyadda dugsigan uu leeyahay degmooyinka laga dhisay isagoo tilmaamay in hore hay'adda Save Children uga dhistay dugsi hoose dhexe imikana ay daboolayaan baahida bulshada iyo caruurtu qabaan inay helaan dugsi sare sida la sheegay maanta halkan waxaan ku dhagax dhigaynaa dugsi sare oo deegaankan loo dhisi doono waxaan rabaa dadka deegaankan inaan dib u xasuusiyo in muddo hadda laga joogo ilaa 4 sano inaan halkan ka dhagax dhignay dugsi hoose dhexe oo maanta dugsiga hoose dhexe uu shaqeynayo isla mashaariicda Save Children iyo Care iska kaashadaana laga dhisay imikana uu shaqeynayo iyadoo marka dugsiga hoose si fiican loogu shaqeynayo in la dareemay baahida loo baahan yahay in dugsi sare halkan laga dhiso oo dugsiyada sare halkan ay aad uga fog yihiin isla markaana ay u baahan yihiin muxuu ahaa dadka deegaankani dugsi sare oo ay caruurtii ku biiraan dadka deegaanka qaar ba hadda waxay noo sheegayeen inay jiraan caruur badan oo dugsi sare gaadhay laakiin awoodi kari waayay inay gaadhaan magaaladii maadaama ay u baahan yihiin bus iyo transportation ay u baahan yihiin alxamdulillah dugsigan wuxuu qayb ka yahay 13 dugsi sare oo wadanka hadda laga dhisayo oo laba kamid ah Hargeysa ku dhaceen inta kale wadanka kale laga dhisayo oo laga fangariyay mashruuc la yiraahdo horumarinta cilmiga oo midowga Yurub ay maalgelintiisa leeyihiin hay'adaha Save Children iyo Care ay wada fuliyaan iyagoo la kaashanaya wasaaradda waxbarashada oo hormood u ah dhammaan mashaariicda waxbarashada marka aad baan ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada wada shaqeynta ay nala shaqeysay iyo sida ay u prioritize gareysay meelaha ugu baahida badan leh ilaahay waxaan ka rajeynayaa in dugsi sare oo muxuu ahaa anfacad deegaanka iyo dadka intan ku xeeranba inuu noqdo waxa isagoo halkaas ka hadlay mas'uul ka socday hay'adda Care oo lagu magacaabo mudane Cabdi Muuse qorshe waxaan ugu jiray maanta iskuul kale oo laga dhisayo Masala marka Care baa gacanta insha Allah ka caawin doona la shaqeyn doona wasaaradda iskuulkan laga dhisayo Masala waxay noqonaysaa waxa lagu qorsheeyay waa 4 school 4 class iyo iyo barkad iyo xafiis iyo musqulo ugu dambeyn waxa goobtaas ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland dawladda hoose Hargeysa iyo deegaankan ee inagu wareejiyay dhulkan
iyo dhulka kale ee masallaha ku yaalla laga dhisayo labada secondary oo ka mid ah 13 dugsi sare oo laga dhisayo mashruuca horumarinta cilmiga wejigiisa afraad inagoo oginay 3 iskuul oo kalena ay miisaaniyadda qaranka ay noogu jiraan oo iyagana aynu dhisi doono waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu iskuullada aynu dhisayno uu inooga dhigo qaar carruur khayr qaba inooga soo dhigaan ay inooga soo baxaan oo aflaxa hay-adahan inoo dhisaya midowga yurub oo maalgeliyey iyo Save Children iyo Care oo labadan iskuul midba mid ay dhisaysana 12 kalena ay labadoodu dhisayaanna waynu mahadnaqaynaa waynu dhagax dhignay insha Allah sanad dugsiyeedka soo socda ardayda ereyadan dugsiyada kaga soo baxda ee aan secondary haysanin ayaa bilaabi doona foobankii ugu horeeyay Ismaan Axmed Sab TV Hargeysa.